habeen wanaagsan kuna soo dhawaada telefishinka BBC Somali qodobada wararkeena caawa ugu waaweyn waxa kamid ah in ka badan 300 oo ruux ayaa Tunisia lagu xiray dibadbaxyo habeenkii saddexaad socda oo looga horjeedo tallaabooyinka guntigiijiska ee dawladda magaalada Mosul oo kooxda la baxday dawladda Islaamka ay marka talin jirtay ayaan warbixin idinkaga haynaa waxaan idin haynaa heesaa madow oo u dhashay Koonfur Afrika oo ku heesa luqadda dadka caddaanka ah in ka badan 300 oo qof ayaa lagu xirxiray dalka Tunisia iyadoo habeenkii saddexaad halkaasi ay ka dhacayaan barnaamijyo dawladda looga soo horjeedo iska hor imaadyada rabshado wata ayaa dhex maray dibadbaxayaasha iyo ciidamada dhowr magaalo oo dalkaasi ah oo ay ka mid tahay caasimadda Tunis dibadbaxayaasha ayaa ka caraysan canshuuraha la kordhiyay iyo miisaaniyadda guntigiijiska ah qiimaha maciishada oo kor u kacay ayaa dalka Tunisia waxaa ka dhashay barnaamijyo rabshado wata halkani waa magaalada Tabaraka oo 20 meel u jirta caasimadda Tunis dhalinyarada halkan joogta ayaa jidadka u soo baxay habeenkii saddexaad nin ayaa ku dhintay maalintii Isniintii rabshadii halkan ka dhacay bilayska iyo militariguna waxa la dhigay dhowr magaalo oo ku yaala dalkan barnaamijyaasha ayaa shiidaya ciidamada isla markaasina taayir gubaya iyada oo loogu jawaabay sunta dadka kaga ilmaysiisa ma aha qaladaadka dadweynaha dhalinyarada waxbay barteen shaqana ma haystaan xaaladoodana way adag tahay maadaama taasi ay noqosayso waa inaan isku dhacyada u dulqaadanaa barnaamijyaasha ayaa lagu eedeeyay in carruur yaryar u adeegsanayaan si ay u biliqaystaan dukaamada ilaa hadda 300 in ka badan ayaa la taxaabay ra'iisul wasaaraha Tunisia ayaa isagu ku tilmaamay markastoo Tunisia ka dhacaan mushkilada bulsho waxa soo baxa dambiilayaal burburin ayay bilaabaan iyagoo carruurta adeegsanaya dadkan uma adeegaan danaha dadka Tunisia dibadbaxyadan ayaa si nabadgelyo ah ku bilaabmay usbuucii hore laakiinse cadhada dadweynaha ayaa baryahanba soo socotay iyadoo dawladda lagu eedeynayo inay waxba ka qaban weyday maciishada oo kor u kacday dalabaadkeenu waa sida soo socota joojiya sharciga maaliyadda ee 2018 soo celiya sicirkii asalka ahaa ee alaabooyinka shaqana siiya qof ka mid ah qoys kasta dawladda Tunisia ayaa iyagu sheegay in ay mar walba siinayaan mudnaanta in ay daryeelaan dalka Tunisia maalinta Jimcaha ee Britole ayaa dalkaasi waxa looga diyaar garoobayaa barnaamij weyn oo laga soo horjeedo nidaamka dhaqaalaha ee guntigiijiska ah magaalada Mosul oo kamid ah magaalooyinka ugu waaweyn Ciraaq ayaa ahayd halkii kooxda la baxday dawladda Islaamka ay khilaafadooda kaga dhawaaqeen 2014 hay'adda xuquuqda aadanaha Amnesty waxay sheegaysaa in tirada dhimashada rayidka ay gaarayso ilaa 10,000 taasi oo 10 laab ka badan qiyaasta rasmiga ah BBC-da oo la socotay weerarkaasi iyo dagaalka halkaasi ka socday ayaa hadda ku laabatay magaalada oo noloshii caadiga ahaydna ay dib u soo laabanayso cabdinaasir saxan saxo ayaa ka waramaya kani waa dariiqa Faaruq oo ka mid ah meelaha lafdhabarta u ah magaalada Mosul oo ah magaalada labaad ee ugu dadka badan dalka Ciraaq xitaa dal sida Ciraaq oo kala ah oo soo maray dagaalo badan magaalada Mosul burburka soo gaaray waa mid aan la qiyaasan karin bilooyin dagaalo ah oo halkaasi looga saaray kooxda isku magacowday dawladda Islaamka ayaa qaybo badan oo magaalada ka mid ah ka dhigay mid uu soo gaaray burbur xooggan wali meydadka dagaalyahanada Daesh ayaa ku hoos jira burburka walina aan la aasin dadka badbaaday sida Axmed oo kale wali halgankii ma uusan u dhamaanin waxa uu dagaalka ku waayay 8 xubnood oo qoyskiisa ka mid ah kuwaasi oo uusan wali helin raq iyo ruuxba ururka IS ayaa yimid deegaanka ay ku nool yihiin qoyskayaga waxayna ku amreen inay halkaa ka guuraan iyagoona soo dejiyay qoysaskooda dumaashiday ayaa yara xanuunsatay maadaama IS aanay doonayn inay qaadaan qof xanuunsan waa ay dileen waxayna meydkeeda ku tuureen webiga dadka ka badbaaday duqeymaha cirka ayaa lagu asteeyay inay yihiin dad taageerayaal u ah kooxda Daesh qaarkoodna looma ogola in ay guryahooda ku laabtaan iyaga oo aanan fasax qoraal ka haysanin maamulka cusub
هاي الناس لازم تدقق أمنيا من قبل الأمن الوطني والاستخبارات. tani waa laba daran mid dooro dadkan waa inay maraan baaritaan amni si loo xaqiijiyo inaysan IS la jirin waxaa jira xubno IS ka tirsan oo aan si weyn loo aqoon sida kaliya aan ku garan karnana waa in dadka deegaanka ay aqoonsadaan sidaa darteed waxaan u baahannahay inaan marka hore aqoonsanno dadkaas ka hor inta aysan guryahooda ku laaban howsha dib u dhiska Mosul iyo sidii looga nadiifin lahaa burburka waxa ay qaadan kartaa muddo sanooyin ah in dagaalyahanada IS laga saaro luuqyada ciriiriga ah ee qaybta qadiimiga ah ee magaalada ayaa qaadatay muddo bilooyin ah isla wadooyinkani iyo dhismayaasha ayaa ah dabino lagu dhiman karo maadaama ay weli yaalaan waxyaabaha qarxa waana shaqada ugu adag ee hortaalla ciidamada Ciraaq faahfaahin dheeraada ku saabsan warbixintan iyo kuwo kaleba waxaad ka heli kartaan bogga BBC Soomaaliya adigoo moobilkaaga ka galaya bal markana aynu eegno qodobo kale oo ku jira wararka maanta midowga Yurub ayaa sheegay in ay ka filayaan in dhammaan qaybaha ay si buuxda u hirgeliyaan heshiiskii 2015 ee barnaamijka nukleerka Iran maalin ka hor markii madaxweyne Trump uu go'aansaday inuu ka baxayo kadib wadahadallo ka dhacay Brussels oo ay la yeesheen wasiirka arrimaha dibadda Iran Mohammad Javad Zarif waxa ay madaxa siyaasadda ee midowga Yurub Federica Mogherini sheegtay in Iran ay si buuxda u adeecayso heshiiska oo ka hortagaya in hubka nukleerka lagu tartamo Pakistan ayaa sheegtay in ay joojisay wada shaqayntii sirdoon iyo tii military ay la lahayd Mareykanka kadib go'aankii Washington ay ku joojisay kaalmo $1 bilyan ka badan oo dhinaca ammaanka ahayd waa jawaabtii ugu xooganeed ee Pakistan ay ka bixiso go'aanka maamulka madaxweyne Trump ee toddobaadkii hore lagu joojiyay dhammaan kaalmadii military ilaa inta ay Islamabad qaadayso tallaabo kooxda la baxday dawladda Islaamka wasiirka difaaca ee Pakistan Qaram Dastagir ayaa sheegay in dalkiisa uu horey u fuliyay mas'uuliyadooda dagaalka argagixisada lagula jiro ayna sii wadayaan shaqaalaha badbaadada ayaa baadigoobaya cid ka badbaaday dhoobadii soo duntay ee koonfurta California booliska ayaa sheegay in 17 ruux la xaqiijiyay inay dhinteen iyadoo 17 kalena la la'yahay in ka badan 100 guri ayaa burburay 300 oo kala gurina waxyeello soo gaartay cadayn cusub ayaa muujinaysa cayaan ay balanbaalista ka mid tahay in ay jireen in ka badan 200 milyan oo sano taasi oo ka dhigaysa in 70 milyan oo sano ay ka wan yihiin intii markii hore saynisyahanada ay maleynayeen daafurkan ayaa ka dhigan in balanbaalista ay jirtay xilli hore ayna ka badbaaday in ay dabar go'do hay'adaha samafalka ee Kaali jooga ayaa sheegaya in ku dhawaad 700 oo muhaajiriin ah ay halkaasi ku dhibaataysan yihiin booliska Faransiiska ayaa si joogto ah teendooyinka iyo busooyinka uga nadiifiya halkaasi si ay u joojiyaan inaan xerooyin dib loo dhisan xero weyn oo halkaasi laga burburiyay sanad ka horna way jirtay samafalayaashana waxay sheegayaan in xaalad oo xun ay dadka ku nool yihiin ay ku qasbayso in ay khatar weyn u bareeraan ciidii masiixiga ahayd ayuu wiil 15 jir dhintay isagoo isku dayay inuu ku boodo gaari UK soo galayay Sohayba Maxamed Badqas ayaana ka waramaysa Ikram Ullah waa 18 jir ka soo jeeda gobolka Gahar oo kamid ah kuwa ugu khatarta badan dalka Afghanistan waa qabow Soomaha dabcan ma ogtahay waxa aad dareemayso markii uu qabow jiro aad noqoyan tahay ilaa iyo intee ayaad u malaynaysaa inaad halkan ku noolaanayso 3 bilood 4 bilood waxaan rajaynayaa in aanan xanuunsanin sababtoo ah ma rabo in aan tago bishii Oktoobar 2016 maamulka Faransiiska ayaa burburiyay xerada Jungle ee halkan ku taalay balse dadka wali waa ay yimaadaan waxa ay raadiyaan goobo cusub oo ay ka dhistaan guryo ku meel gaar ah hay'adaha samafalka ayaa qiyaasaya in ilaa iyo 700 oo qof ay halkan ku sugan yihiin oo inta badan ay mar kale teendooyin ka dhisanayaan kaynta waxaan helnay warbixinno badan oo ah in boolisku ay adeegsanayaan sunta dadka ka ilmaysiisa dadka waxa ay ku soo toosayaan ayaga oo wixii ay ku jiifeen la kala firdhiyey sharcina ma aha isticmaalka sunta dadka ka ilmaysiisa waa awood xad dhaaf ah oo ay ciidanku adeegsanayaan
booliska kaale waxa ay ku jawaabeen in tallaabada ay qaadeen ay sharci ahayd. inta badan dadka halkan ku sugan waxa ay ka yimaadeen Afghanistan, Suudaan, Eritrea iyo Ethiopia. bishii hore 2 qof oo qaxooti ah ayaa ku dhintay soohdinta. mid ka mid ah waxa uu ahaa wiil 15 jir ah. welina habeen iyo maalin oo dhan dadka waxa ay sugayaan fursad ay ku raacaan gawaarida halka mara si ay u helaan mustaqbal wanaagsan. markana wararka ciyaaraha ugu waaweyn kubadda cagta ciyaaraha koobka Del Rey, Barcelona iyo Celta ayaa wada kulmay. Real Madrid ayaa u soo gudubtay 8 ugu dambaysa ee koobka Del Rey inkastoo ay barbaro 2-2 ah ay la galeen kooxda Numancia. labada gool ee Real Madrid waxa dhaliyay xidiga Lucas Van Gos. Barcelona ayaa contract la saxiixatay difaaca Yerry Mina waxayna ka bixiyeen 14.2 milyan oo dollar. waa ciyaartooygii labaad ee weyn ee Barcelona ay la soo wareegato iyagoo 190 milyan oo dollar ka bixiyay Philip Coutinho oo ah reer Brazil. waqtigii taliska midab kala sooca ka talin jiray Koonfur Afrika ardayda madoobi way ka mudaharaadi jireen inay bartaan luqadda Afrikaaniska ee cadaanka dalkaasi laakiin hadda Reference Morocco oo ah nin madow oo dhalinyaro ah luqaddaasi waxa uu noqday in uu ku heeso oo hobol codkiisa la jecel yahay. warbixintaasina waxa inoo haya Axmed Xaaji Xasan. markii hore ma ahayn wax fudud in qof madow ah uu ku heeso Afrikaans. ma ogi in dadka ay fahmeen wixii aan doonaya inaan sameeyo balse hadda caadi ayay ii noqotay. dad badan waxay Afrikaans u arki karaan luqad qarsoon ama wax la mid ah laakiin way fiican tahay inaan aragno in safar dheer aan ka nimi aanna ku nool nahay dal ay dadka madowga ah ku heesi karaan Afrikaans. dadka Afrikaans ay ku heesi karaan Zulu aysanna ahayn wax lala yaabo sidii aan ahaan jirnay. waxaan ka soo jeedaa qoys South African ah. waalidkayga kuma hadlaan luqadda Afrikaans iyo wax la mid ah. hooyaday waa Zulu, aabahayna waa Taswana. waxaan deganahay gobolka Sotho waxaana ku hadlaa Sotho. marka aan hadalka bilaabo qof kasta wuu dhageystaa wuxuuna sugaa inaan Afrikaans ku heeso. la yaab ayay ahayd sida iska cad in dadka ay la dhaceen. waxay dhaheen waxaan ognahay inaad Afrikaans ku hadasho balse ma filayn inaad shaqo la yeelato dadka Afrikaans ah. waxa keli ah ee aan gartay inaan shaqo ka dhigto fanka marka muuqaalkii ugu horeeyay la baahiyay. si fiican ayay dadka uga heleen. kadib waxaan bilaabay inaan sii jeclaado balse taas weli waan xasuustaa. marka bandhiggii ugu horeeyay kadib ma ogi waxa isbedelay. gadaalba ma eegin waan sidii aan rabay inaan sameeyo. Due My Venster waxa ay tahay daaqadayda bannaankeeda. waa sida aan jacaylka ku faafiyo. It's a peek for the listeners through my heart's window so they can see what's going on inside. It's my way of spreading love. Luister en die donker hier na die nachtgeluide van Lisa se klavier. markana bandhig hal habeen socday ayay in ka badan 200 oo diyaaradaha droniska waxay indhaha ka caawireen dadkii daawanayay magaalada Las Vegas. bandhigaasi oo ka dhacay mid ka mid ah hoteelada ugu caansan magaalada ayay ujeedkiisu ahayd in tiro badan oo mashiinada duula ay wada socon karaan iyagoo aanan isjirin. bandhigaasi ayaa loogu talagalay sidoo kale in ay arkaan dadkii ka soo qayb galay bandhig lagu soo bandhigo qalabka elektroonikada oo halkaasi ka socday kaasi oo lagu soo bandhigo farsamadii ugu dambeysay. warkan iyo kuwii ugu dambeeyaba waxaad kala socon kartaan oo ka helaysaan boggeena bbcsomali.com. intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa caawa barnaamijkeena. intaan kulmayno habeen dambe waxaan idin leenahay waad mahadsantihiin. nabad gelyo.